In dhawaa dalka Mareykanka waxaa ka socday dadaalo inta badan ay wadaan xubnaha xisbiga dimuqraadiga oo lagu doonayo in xilka looga xayuubiyo madaxweynaha dalkaasi Donald Trump. 13kii bishan ayaa la filayaa in uu bilowdo dhageysiga dacwadda la doonayo in si rasmi ah xilka qaadis loogu sameeyo madaxweyne Trump. Balse marka laga hadlayo xaaladda dhabta ah, ma ahan mid sahlan suurtagalnimada ama suurtagal ah. Ma ahan in maalin kasta aad aragto madaxweyne Mareykan ah oo halis ugu jira in aqalka Koongareeska uu xilka ka xayuubiyo. Xilka qaadistani ayaa ah nooc dacwad ah oo horseedi karaya in aqalka Koongareeska ee Mareykanku uu xilka qaado madaxweynaha xil haya. Dadka qaar ayaa u maleeyo in dacwadaasi xilka qaadista ahi ay ka dhigan tahay in isla markiiba Trump uu xilka sida ku weynayo, balse xaqiiqda ayaa ah inay tahay bilowga hannaan laba qaybood ka kooban oo ay tahay in ay qaadaan xubnaha labada aqal ee baarlamaanka dalkaasi. Ugu horreyn, xildhibaanada aqalka wakiilada ayaa eegaya cadeymaha ka dhanka ah madaxweynaha, kadibna waxay go'aan ka gaarayaan in la sii wado dacwadda madaxweynaha ama ay markiiba soo jeediyaan in la marsiiyo sharciga xilka qaadista. Balse aqalka sare ee baarlamaanka ayay tahay mas'uuliyadiisu inuu dacwaddaasi qaado. Haddii wax dambi lagu helo madaxweynaha, isla markiiba waxaa laga xayuubinayaa xilka, waxaana madaxweyne loo magacaabayaa ku-xigeenkiisa. Haddaba su'aashu waxa ay tahay, waa imisa tirada madaxweynayaashii hore ee Mareykanka ee xilka laga xayuubiyey? Andrew Johnson 1900, waa 1868, iyo Bill Clinton 1998 ayaa labaduba lagu soo oogay dacwad xilka qaadis ah, balse labaduba aqalka sare ee baarlamaanka ayaa badbaadiyey. Sanadkii 1974 ayaa madaxweyne Richard Nixon waxaa lagu helay dembi ah in uu basaasay musharaxiintii la tartamayay, waxaana soo baxday fadeexadii la magac baxday Watergate. Balse markiina xilka ayuu ka degay, waayo waxa uu ogaa in aqalka wakiilada uu dacwad ku soo oogi doono, kadibna aqalka sare uu xilka qaadis ku sameyn doono. Haddaba dhageystay daawade, ka waran Trump maxaa loo haystaa? Madaxweynaha Mareykanka Trump ayaa lagu eedeynayaa in uu ku tagrifalay awoodiisa madaxweyne, isla markaana uu adeegsaday siyaasad qaab daran oo uu xoojinayo sidii mar kale u soo dooran lahaayeen shacabka waddankaasi sanadka dambe. Waxaa lagu eedeynayaa in cadaadis uu ku saaray dhigiisa dalka Ukraine in uu fadeexeeyo qoyska Joe Biden oo ahaan jiray madaxweyne ku-xigeenkii Barack Obama, haatana la filayo inuu doorashada 2020 kula tartamo madaxweyne Trump. Su'aalaha kale ee la isweydiinayo waxa ay tahay, marka miyuu Trump sharciga jabiyey? Dadka oo dhan iskuma waafaqsana in madaxweynuhu uu xilka qaadis ku muteysanayo in hogaamiye shisheeye uu ka codsado in uu ceebeeyo nin tartan kula jira. Madaxweyne Trump ayaa sheegaya in uusan geysan wax dembi ah, waxa uuna dacwadiisa xilka qaadista ku tilmaamay mid aan miisaan lahayn oo halis ah. Aqalka cad ee laga xukumo Mareykanka ayaa sheegaya in uusan wax wada shaqeyn ah baarlamaanka kala yeelan doonin dacwadaasi ka dhanka madaxweyne Trump. Balse Trump ayaa mashaakil gunta u galay tan iyo markii qof xog ogaal u ah arrimihiisa uu shaaciyey macluumaad ku saabsan wada hadal qadka taleefanka ku dhex maray madaxweyne Trump iyo dhigiisa waddanka Ukraine 25kii bishii July ee sanadkani. Trump ayaa hakiyay malaayiin dollar oo uu ku kaalmeyn jiray militariga dalka Ukraine, waxaana 4 mas'uul ay sheegeen in madaxweynuhu uu wacad ku maray in uusan lacagtaasi bixinin ilaa Ukraine ay baaritaan ku bilowdo ninka laga yaabo in uu doorashada dambe kula tartamo ee Joe Biden. Balse aqalka cad ee Mareykanka looga arrimiyo ayaa arrintaasi beeniyey. Su'aalaha kale la isweydiinayo waxaa ka mid ahaa, maxaa xigi doona Trump kadib? Kooxo guddiyo ah oo ka tirsan xildhibaanada ayaa bilaabi doona baaritaano. Guddi kasta waxa uu ku takhasusay arrimo laga yaabo inay xiriir la leeyihiin dacwaddan. Tusaale ahaan, guddiga arrimaha dibadda ee baarlamaanka, kan maaliyadda iyo kan cadaaladda. Waxay guddiyadaasi sidoo kale soo bandhigi doonaan dadka ku markhaati furaya madaxweynaha. Qareennada u dooda madaxweynaha ayaa sidoo kale goobjoog ahaan doona dhageysiga dacwaddaasi. Haddii guddiyadaasi baarlamaanku ay go'aansadaan in madaxweynuhu uu wajaho dacwad, waxaa arrintaasi cod u qaadaya dhammaan xubnaha baarlamaanka. Su'aasha kale waxa ay tahay,
suurtagal ma tahay in xilka qaadis lagu sameeyo Trump? In xilka qaadis lagu sameeyo Trump waxaa loo baahan yahay oo kaliya cod hal dheeri ah madaxweynaha, maadaama xisbiga mucaaradka ah ee dimuqraadiga uu aqlabiyad buuxda uu ku leeyahay aqalka wakiilada. Waxaa suurtagal ah in Trump xilka qaadis lagu sameeyo. Shakhsiyaadka ugu saameynta badan gudaha xisbiga dimuqraadiga ayaa sheegaya in ay doonayaan in Trump cod loo qaado ka hor inta uusan dhammaan sanadkani. Marka suurtagal ma tahay in Trump uu sida xilkiisii ku waayo? Sida uma sahlana, waayo xisbigiisa jamhuuriga ayaa 58 xubnood oo ku leh aqalka sare ee sanadka ee ka kooban 100 xildhibaan. Sida awgeed waxaa loo baahan yahay 3 meelood meel guud ahaan tirada xildhibaanada aqalka sare si rasmi ah xilka qaadis lagu sameeyo Trump. Marka ilaa qiyaastii 20 ka mid ah xildhibaanada xisbiga jamhuuriga ayay ka taageerayaan xilka qaadista, Trump ayaa sii ahaan doona madaxweynaha Mareykanka ilaa doorashada dambe. Ilaa iyo haatan xildhibaanada xisbigiisu daacad ayay u yihiin. Haddaba maxay soo kordhinaysaa dacwadani xilka qaadista? Taageerayaasha madaxweyne Trump ayaa rumaysan in mucaaradka ay doonayaan in ay wiiqaan sumcadda iyo shacbiyadda Trump ka hor xilliga doorashada ee sanadka dambe. Dacwadan xilka qaadista ahi ayaa sidaas ahaan doonta dacwad weyn ku ah sumcadda Trump. Trump oo ah hantiile siyaasi isu bedelay ayaa tan iyo markii uu xilka qabtay waxa haystay caqabado badan dhanka sharciga ah. Tusaale ahaan, waxaa muddo ku socday baaritaan ku aadan xiriir la sheegay in uu la leeyahay dowladda Ruushka, diidmada uu diiday in uu sharciyo dukumiintiyadiisa canshuurta celinta, iyo lacago la sheegay in uu siiyey 2 gabdhood oo la sheegay in uu xiriir la lahaa. Eedeynta in Trump uu cadaadis saaray madaxweynaha Ukraine si uu u fadeexeeyo Biden ayaa culayska ku sii kordhin doonta madaxweyne Trump. Balse dacwadan xilka qaadista ayaa sidoo kale halis ku noqon karta mucaaradka gudihiisa, taa oo ka dhigan in deegaanada jamhuuriga ku badan yihiin ay cod ka waayaan musharaxiinta dimuqraadiga marka la gaaro doorashada soo socota.